maamulka gobolka Togdheer ayaa mag u kala wareejiyay laba beelood oo ka soo kala jeeda gobolka Togdheer ee Somaliland iyo gobolka Mudug ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo muddo 24 sanadood ay day kala dhaxtaalay qaar kamida madax dhaqameedka labadani beelood oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku niyadsan yihiin in kiiskan maanta xal laga gaadho waxaanay ballan qaadeen inay si wada jira nabadda iyo xasiloonida uga wada shaqeynayaan waxaa lagu kala qaatay halka saaka ku dhamaaday maartay nin dhintay 1995 oo dhaxmaray reer Abu Rahmad iyo Leelkase si nabada oo walaalnimo ah oo islaamnimo ah maartay loo kala dhameystay waxana muddo iyo baaqi ay yeesheen waxaan maartay u sheegay maartay dadka maartay ehelada ee maartay kamid ah dad iyagu maartay in arintaas ay nabadii walaalnimo ku dhamaatay gobol nabadeed maartay inuu ka qayb qaato qaybtii milxaad loo ka qaatay gudoomiyaha gobolka Togdheer heshiis walaalnimo la isugu yimid waa la dhameystirtay si qurux badan bay ku dhamaatay mahadaas ilaah baa iskale marka xiga waxaan u celinaynaa gobolka Togdheer sababtoo ah asaga isu kaaya keenay asaga gogosha noo dhigay asaga gurigiisa aan ku jiraa saaka anigu mudug baan ka yimid Leelkase mudug buu degan yahay waxaan joogaa Togdheer xaqa aan lahayna waa qaadanay muddo dheer asagoo qaraabaan qaadan dadkaas baxshay oo xaqaas bixiyay inay xaq baxaan oo dulmigaas ay ka fogaadaan bay u baxshay cid walba muslim oo Soomaaliyeed sida laga rabaa barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa dhankiisa sheegay in maanta soo afmeereen kiis 24 sanadood soo jiitamayay isagoo ka waramay heerarkii kala duwanaa ee xalinta kiiskan soo maray halkan maanta waxaan ka ceelaaminaynaa amaanu ka sheegaynaa inaanu ku soo afjaray ama ku soo afmeeray diye ay isu sheeganayeen labada qolo ee Leelkas iyo Abu Rahmad diyadaas oo nin marxuum ah oo ku dhintay shil gaari oo 1995 ka dhacay deegaanka Yurowe magtaas oo loo sheeganayay Abu Rahmad ayna sheeganayeen Leelkas muddo badan runtii ka soo wareegtay ugu dambeyntii waxaan ku guuleysanay in aanu hawsha qaybteedii hore maanta soo afjaro oo qolada Leelkas la siiyo diyadii qaybteedii hore jifada Soomaalidu ay u taqaano intii kalena loo mudeeyay in lagu siiyo muddo 8 bilood oo ka bilaabmaysa bishan afraad kowdeeda sida daraadeed cid kasta oo waxa weeyaan gobolka Togdheer joogta ama cid gobolka Togdheer wax u sheeganaysa ay jiraan waxaan ka codsanaynaa in sida ay yeeleen maartay dadka deegaanku ay galdoob ka yimo kala ay sameeyeen inay wax weeyaan cid ay wax ku leeyihiin yimaadaan maamulku wuxuu diyaar u yahay cid kasta haday tahay dadka reer Togdheer haday tahay dadka reer Somaliland iyo haday tahay dad kale oo wuxuu sheeganayaba inaanu sida aanu ugu kala qaadnay labada beelood aanu ugu kala qaadno iyaguna ay noogu qabsoomaan Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi Bulsha TV Burco